ma diyaarisay qorshayaal fara badan ood uga dan leedahay sannadada soo socda? Sidoo kale ma ku hamiday ama ma ku fikirtay inaad mustaqbalkaaga dhisto, balse wax macsuula ma ka weyday? Waqtiguna sidii aad ku ogeyd ma yahay? adiguna halkii aad taagneed shalay ma taagan tahay? laakiin sabab ma isweydiisay su-aasha, maxay wax u qabsoomi laayihiin? maxaad halkaad rabtay u gaadhi leedahay? waxaad qorshaysay maxay sidaad u qorshaysay u noqon waayeen? aakhiro qofku qiyaamaha ma dhaqaaqo ilaa iyo la weydiiyo dhowr su'aalood. su'aalaha waxaa ka mid ah can cumrihi fiima afnaah, cumrigii oo dhan waxaad ku qabatay. wa can shabaabihi fiima ablaah, cumriga qayb ka mid ah, da'da qayb ka mid ah oo ah da'da dhallinyaradannimada la yidhahdo, iyada question gaara bay leedahay. dadku intooda badan waa laba nooc: dad wakhtiga iyo waayu ay saameeyeen, iyo dad da'dooda iyo environmentka ay ku nool yihiin la falgalay ama ku milmay. waxaa laga yaabaa inaad isweydiinayso, sidee bay qof da'diisu u saameyn kartaa ama environmentka ku nool yahay ugu milmi karaa? qofka biniaadanka ah waxa uu maraa 3 marxaladood. marxalad waa caruurnimo, marxaladna waa marxalad dhallinyarnimo, marxaladda u dambeysana waa waayeelnimo. qofku waqtiga ugu adag wuxuu soo qaataa waqtigiisa dhallinyarnimada, kaas oo uu soo bixiyo juhdigiisa ugu badan, lala kulmo caqabadaha ugu badan. qofku inaanu waqtigiisa maareyn, garanayn waxyaabaha uu nool yahay ama waxyaabaha laga doonay inuu qabto, sidoo kale ku jiro waxyaabaha badan oo aan macno lahayn sida social media, waxay keentaa inuu qofku qaado marin aan marinkiisii ahayn ama uu ka leexdo waddadii uu guusha ku gaadhi lahaa. badanaa wuxuu dhalinyarteena waqtigu kaga dhacaa isticmaalitaanka aaladda social media, weliba si aan saxayn, iyo sidoo kale ka warhaynta nolol qof kale leeyahay. qofku inaad ka warhayso nolol qof kale, garanayn waxyaabaha laga doonay sida noloshaada, sidoo kale ku jiro waxyaabaha badan oo aan macno lahayn sida social media, qof mar walba faraaqale inuu qofku qaado oo aan qaban marinkiisii ahayn, inaad mashquul ahaataa waddadii uu guusha waxay noloshaada u faa'iideynaysaa waxyaabo badan. badanaa sida inaad dhalinyarteena waqtigu kaga dhacaa isticmaalitaanka aaladda social media, weliba si aan loo maro guusha, iyo sidoo kale ka warhaynta nolol qof kale leeyahay. inaad isku daydo wax walba kuu geynayo guushaada, inaad habeenkii seexato, subaxiina soo kacdo, casarkiina meelaha fadhi ku dirir iyo sheeko iyo waxyaabahan macno lahayn aad wadaa, inay hoos ku dhigto mooyaane waxba kuu kordhin mayso noloshaada. dhalinyaro badan ma garanayaan halkay ka yimaadeen, halka ay marayaan iyo halkii ay u socdaan midnaba. sidoo kale ma laha wax goola ama wax hamiya oo meel u yaalla way doonayaan inay gaadhaan. inaad la tartanto waqtiga oo aad barato sida loo maareeyo waqtiga waxay kuu keenaysaa ama waxaad ka faa'iidaysaa ama waxay kugu dhiirinaysaa inaad noqoto qof caqligiisa iyo jirkiisu ay mar wada koraan, inaad noqoto sidoo kale qof curin leh wax laga faa'iido. qofku marka uu gaadho da'da 20 jirka waa marka uu ugu firfircoon yahay ama marka uu ugu furfuran yahay, sidoo kale waa marka uu qabsan karayo waxyaabo fara badan oo raasamaal u ah mustaqbalkiisa dambe. aqbalidda wax walba waa waxa kugu dhiirinaya inaad ku milanto environmentkaaga ama inay ku saameeyaan. haddaba si aanay ku saameyn environmentkaagu, waa inaad ku dadaashaa ama aad iska ilaalisaa bartaada cagta dhigayso. sidoo kale waa inaad fiiro gaar u lahaataa cidda aad la rafiiqayso, waayo nolosha qofka biniaadanka waa celceliska 5 qof ee ugu dhow ee mar walba uu la wadaago noloshiisa ama uu saaxiibka leeyahay. waqtigu waa sida seefta, haddii aanad sirin ama aanad la tartamin, adiga ayuu ku jari doonaa ama nolosha ayuu ka ridi doonaa. inaad garan weydo hibadaada ama waxaad ku fiican tahay waxay kaa jeedisaa mustaqbal aad samayn lahayd. badanaa dadka guusha gaadhay waxay sii xoojiyeen ama ay kor u qaadeen hibadii ay lahaayeen, waayo hibada aad leedahay ama waxaad ku fiican tahay waa waxa qudhaatay ee kaa dhex saari kartaa halkaad maanta joogto, kuna geyn kartaa meel kasii sarreysa. halka shay ee aad kaga guuleysanayso waqtiga iyo environmentka kugu xeeran caqabadihiisa waa inaad alla ku xidhnaato marka koobaad, iskuna daydo mar walba inaad barato waxaanad hore u aqoonin, hadday noqoto skills iyo hadday noqoto macluumaad kale. sidoo kale waxaan doonayaa inaan idin soo gudbiyo ama podcast-igaan uga hadlo wixii afkaara ama rayiya ee nolosha la xidhiidha ama wixii marxaladaha markaa taagan.